الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إله وحن كبرنا سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العلى. عذر كان شرو إله مواقبته وعذر امتحان كان ولا قبل حدونا إن شاء الله. إلهنا وحن ويديسنا إنه نقبل باديو أنت دمتي ومسلمين إلهي إنه قدم إضافه جنة الفردوسنا إنه جاي إن شاء الله. برنامج كان هدين وكذا قلنا ارتقيب وحكم بحدونا في الصومالي قيد تضمن إن شاء الله لغة إنجليزية وحكم سابسين هاي the purpose of life. أما قفك وحو إنه لمهم دو إنه لهاي أيكو سابسين تهاي. أولا وحنا أبو ري الله سبحانه وتعالى قف أرنتاس إن حقيقة إن كلا شك وجر مجره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إله وحولي هاي لما أبورين إنسان كإيجنيجا إن إله عبدا مويه. إله وحولي سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انت سبحان كفهني ومركز تسون قنيا إن النهاي عباد الله ومقدومة إلهي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أروا ضمبئوا يعبدونه محالو لجهدا. سورة دارن كشاكني سورة الإخلاص إلهي إنه الله ارتلي رهده وسمد يهي الله سيده إنه يهي لم يلد ولم يولد وأحمد دلين سنة لما دلين ولم يكن له كفوا أحد. أرودن بأحد أو أتاجن إنه الله كله سيهي أو الله كله سنشرين وإنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قفك هرتا إنه أجاده الله أبوري سدابك أجانا إلى هرتا مقعد بدن بوليه وحاكم ذا الرحمن الله نحرسته جود نحرسته الرحيم الله نحرسته جارك نحرسته الله عظيم ووين الله وعزيز إلهي وقوة بوليه. marka intaas haddaan ka soo noqon waxa weeyaan ilaahay wuxuuna siiyey wax la yiraahdo nicmooyin buu na siiyey. النعمة ayuuna siiyey. nicmooyinkaas waxaa ka mid ah uma kasta kula socdo waa jismigaaga ama nafsadaada. indhahana wax ku fiirisid waa nicmo ilaahay. codkan oo afka ka soo baxay waa nicmo ilaahay. lugahana ku socoto waa nicmo ilaahay. gacmahan wax ku qabsato waa nicmo ilaahay. maskaxdana waa ku fikirtay waa nicmo ilaahay. qalbiga ama wadnaha oo asal u ah jirkan dhan waa nicmo ilaahay. ina horta awalan aan dhahno alxamdulilah. qul alxamdulilah. ilaahay wuxuu noo soo diray rasuul buu noo soo diray ambiyo buu noo soo diray oo ugu horeeyo aabbaheena sare aadam calayhi salaam oo ugu dambeeyo suubanaheena محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله بعث محمدا ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إن الله بعث محمدا إلهي وحوس صاري محمد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج العباد أضومها إنه كسروا من عبادة العباد إن يعبدان أضومك لي أضوما بن آدم كإله أبورينا بن آدم كلا عابدان أما مخلوق كلا عابدان هديهن دقحان هديهن حيواني وحي لمضة إلى عبادة رب العباد
inay caabudaan rabbiga addoomahaas rabbi u ah waa allah subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu soo dejiyey qur-aan buu soo dejiyey waa kalaamullah, wax la abuuray ma aha, makhluuq ma ahan, waa kalaamullah. qur-aankaas wax kasta wuu na farayaa, wax kastay oo u baahannahay qur-aanka waa ka helaynaa. haddii aad stress qabtid qur-aanka jawaab u ah, haddii aad guul rabtid qur-aanka ayaa jawaab u ah. wax kasta u baahan tahay qur-aanka baa ka helaysaa oo khayr ah. intaa dhan maxaa u sheegayaa? waxaan u sheegayaa horta ilaahay ujeedo buu ka leeyahay waxaan uu soo diray, hadday yihiin ambiyada nicmooyinkan uuna siiyey kalaamullah oo qur-aanka ilaahay ah, ulajeedo buu ka leeyahay. maadaama nahay addoommada ilaahay waa in maaragtay aan waxaan dhan aan cilmi u yeelanaa. cilmi markaa u yeelano waan fahmi karnaa oo waxa weeyaan waa ku dhaqmi karnaa. laakiin qofka asalkiisa hadduusan ka dhisnayn caqiidadiisa, hadduusan ka dhisnayn tawxiidkiisa, hadduusan aqoonin ilaahay, hadduusan aqoonin rasuulkiisa, hadduusan aqoonin koonkan allah abuuray samada iyo dhulka iyo wixii u dhaxeeya, waxa weeye mushkilo waayo. waa muhiim in waxaan dhan la barto. sida lagu baran lahaana waa aad bay u sahlan tahay. qofkay ku xiran tahay in maaragtay uu go-aan ka qaado, uu go-aansado. nebi sal ly slam wuxuu leeyahay inama alacmaalu binniyaat, camal kasta wuxuu ku xiran yahay niyadduu ku xiran yahay. wax kastaa samaysid waxaa asal u ah niyaddaada. waxaa ku soo xiga maskaxda oo ka shaqaysiisay oo aad ku go-aansatay. waxaa ku soo xiga jismigan oo isticmaashay, hadday tahay khayr, hadday tahay shar. noloshan oo aan ku jirno haddii aan ku soo noqonno waxaa weeye ulajeedo baan naga leeyahay. ulajeedadaas oo naga leeyahay waa sidaan isla fahanay. horta ilaahay wuxuu naga rabo inaan fahano oo aan ogaano oo aan barano. noloshan sidiisaba waxa weeyaan inaan ogaano horta maxaa u joognaa, ama ilaahay muxuu noo keenay. waxaan u naqaana transit, waxa weeyaan adduunkan transit baa ku nahay, laakiin nolosha dhabta ah oo dambaysa waa maalinta aakhira oo intaasoo sano alla la hor istaagi doona, oo adduunka nebi aadam haddii laga bilaabo oo ugu dambeeyo qofka ugu dambeeyo oo la abuuri doona oo nafta ka bixi doona, waa la isku keeni doonaa. markii la isku keenaa dan baa laga leeyahay, waxaa xisaab baa ku soconaysa. qofka wuxuu soo sameeyey ayaa la xisaabayaa. waxaa weeyaan waxa ku hadashid iyo waxaa samaysid qowlan wa ficlan waa la qorayaa. waxaa jira laba malag oo garabkaaga saaran, mid waxaa la yidhaahdaa raqiib, midna waxaa la yidhaahdaa catiid. mid wuxuu qorayaa camalkaaga wanaagsan, midna wuxuu qorayaa camalkaaga xun oo samaysay. maadaama noloshan ay tahay nolol kooban oo u naqaano wax la yidhaahdo transit, oo la joogi doono saacado kooban ama sanado kooban oo orod kugu dhaafaya, waxa weeyaan waa inaan ka faa'iidaysanaa. markii lagu leeyahay diintaada baro, markii lagu leeyahay allahaaga baro, ma ahan in wax maaragtay lagu adkeynaa, ma aha. waa dan lagaa leeyahay. maadaama dan lagaa leeyahay ay tahay, waxaa jira wax kula dagaalamaya loo yaqaano shaytaan. shaytaan wuxuu ballan ka qaaday ilaahi subxaanahu wa tacaala oo ugu horeyso horta in uusan u sujuudin nabiyullaahi aadam markii la amray. waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliis. ibliis uu diiday inuu nabiyullaahi aadam u sujuudo. ulajeedada laga lahaa ma ahan nebi aadam caabud, ee waxaa weeyaan waxaan abuuray aqoonso waayo, oo ah makhluuqa ugu wanaagsan insaanka. marka shaytaan oo markii hore nagu kibray oo diiday inuuna aqoonsado, inaan isaga aan caabudno oo wuxuuna amraya aan qaadano, meeshaan diidi lahayn oo ilaahay oona abuuray aan amarkiisa qaadan lahayn waa laga fiican yahay. oo waxaa weeyaan meel xun baa ku dhacinaa. cinwaanka guud haddaan ku soo noqonno ihdina asiraata almustaqiim,
waxa way hidaayada lagu ama hanuunka lagu hanuunayo jidka toosan waxa ka leexna inaad iska ilaalisid hadday iska ilaalisid oo wixii lagu amro oo wanaagsan aad samaysidna waxa weeyaan waa guuleysanaysaa إله وحلاه سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ما واحد مودسا أدون كان إن عيار وكاني ما أجد مياه إن إله كنا قنست وحكستي وحويان ملبكو إيجهن هذا ملكو إيجهن وحويان ومالنت قيامه وشقي أو سعيد بان قنسا inaad jannada gashay ama inaad naarta gashay naarta sida iskaga ilaalin lahaa oo jannada loo heli lahaa in la ogaado oo la barto waa muhiim jannada haddii si kooban aan uga hadalno waa meel aan ku dambeyn doono haddaynu nahay muslimiin ilaahayna waxaynu leenahay subxaanahu wa tacaala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار ودعاء مهمة ولو باهي مركزين لو دعيستو إلهي إنه جنة نسيو النار تكفوغانو جنة ما حكيه ليسا جنة وحكيه ليسا وحك السواء وباهنتا واجعشها وخيرا سيدا كوهل اللهين وحاوية مراه هذا إنا بيرتد لو باهي فإذا إنه وهليسا مراه مركا هذا بيرتد فإذا وهليسا haddaadan beeranin oo waqtiga loogu talagalaadan beeranin oo waqtiga markaa intaad joogtid adduunkan waxa weeyaan markaad dhimatid waqtigaa waa dhammaaday fursad aad ku heshid inaad dib ugu soo celisid dadaalkaaga way kaa dhammaanaysaa toobada way dhammaanaysaa markaad dhimatid ama maalinta qiyaamo markii la gaaro oo maalin jimco ku aadan markaa beertaada markaa miraha u dhalisid oo faa'iidada ka heshid faa'iidada adaa iska leh oo waxa weeyaan sidaa rabtid baa ka yeelaysaa haddaa cunaysa haddaa gadanaysid wax kastoo khayra baa ka helaysaa laakiin waxa uu la jeedo waxa weeyaan camal wanaagsan haddaa la timaadid janna baa helaysaa camal xun haddaa la timaadidna naar baa helaysaa qof la dulminaa ma jiro maalinta qiyaamo wuxuu la yimid unbuu helayaa waxaa soo haray waqtiga saacad baan ugu socda qof kastay waxa weeyaan sanad waa ka weyn yahay dhowr iyo 20 jir haddaad tahay dhowr iyo 10 jir haddaad tahay 5 jir haddaad tahay haddaad 40 jir tahay haddaad 100 jir tahay iyo wixii la mid ah waxa weeyaan waqti baa soo martay ilaa hadda waqti baa ku jirta waqtiga sida ugu faa'iidaysan lahayd waa inaad sida dahabka camal u qiimeysaa maanta dahab haddaa lagu siiyo waad qiimeyni maanta dahab haddii lagu siiyo waxaad isleedahay oo jeceshaa ku samayn kartid baa ku samayni marka waqtiga sida dahabka camal in loo qiimeeyo intaas oo dhan sidee baa lagu heli lahaa waxaa asal u ah horta cilmi baa asal u ah ama in wax la barto sheekha la yiraahdo maxamed bin cabdulwahaab raximahu llahu tacaala wuxuu leeyahay iclam raximaka allah annahu yajibu calayna tacalumu 4 masaa'il afar arrimood oo muhiim ah ayaa waajib nagu ah oo la rabo inaan ka soo baxno al-ula al-ilm waxa ugu horeeya al-ilm wa huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu diin al-islam bil adillah awalan ina baratid Allah subhanahu wa ta'ala taas waa isla fahnay ilaahi marka baratid rasuulkiisina baratid sallallahu alayhi wa sallam ina baratid diinta islaamka oo la yimid nabi sallallahu alayhi wa sallam oo asleen ka yimid Allah subhanahu wa ta'ala iyo adilooyinkiisina barano cilmi waxa la yiraahdaa cilmi lama yiraahdo waxay gaalo la soo baxeen cilmi lama yiraahdo waxay gaalo la soo baxay cilmiga dhabta ah waa diinta islaamka cilmiga dhabta ah waa ina baratid nabi sallallahu alayhi wa sallam cilmiga dhabta ah ugu muhiimsan waa ina baratid Allah ku abuuray subhanahu wa ta'ala intaas markaa baratid maxaa ku soo xiga waa arinta labaad al-amal bih waxa baratay ila waa wax wanaagsan waa ina ku amal fashaa oo ugu horeeyo salaada
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صلاة ugu horeysa oo zakada ku xiga qofkii lacag leh inuu bixiyo wuxuu awoodo waxa ku soo xiga soonka ku soo xiga waxa ku soo xiga xajka baa ku soo xiga amalo badan waa jiraan oo intaas aan sheegay ka soo haray waxa ugu yar oo lagu galo jannada waxa kamid ah wax wasakhaysan ama dhagax ama wax dadka dhibaya inaa wadada ka leexisid waa amal wanaagsan laba qof isdagaalay inaa islaax u samaysid waa arin wanaagsan dad fadhi ku dirir u fadhiya inaa arin wanaagsan u sheegtaa tiraa ilaahay ka cabso waa arin wanaagsan kuma xirna amalka kaliya arkaanul islaam iyo arkaanul iimaan wixii ka soo hara wanaagsan waa amal wanaagsan waxaan dhan waxa loo yaqaanaa al-ibaada ismun jaami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah ibaadada waa magac jaamica wax ka soo ilaahay jecel yahay oo raali ka yahay waa amal wanaagsan ama waa ibaado waa arinta saddexaad ee ad-da'watu ilayhi waxa baratay oo aad ku amal fashay marka meel iska soo saartid oo dariiqa toosana haysatid ad-da'watu ilayhi wa ina dacwada ka qayb gashaa oo dadku waa inaa u sheegtaa waxa baratay ama ku amal falaysid ilaa qofka dhunsan hadaa maanta soo qabatid oo laba eray u sheegtid ama arin wanaagsan u sheegtid waxay sabab u noqonaysaa inuu ku badbaado haddii uu go'aankaas qaato nidaam loo sheegana waa jira hadaa tiraadid warniyo nacas baa tahay maxaa waxa sameynaysid maxaa masaajidku ugu maqan tahay maxaa waxaan u sameynaysaa waa laga fiican yahay qofka markuu dacwada bixinayo nidaam loo bixiyaa jira qaab wanaagsan loo bixiyaa jira qofka waa inaa u nasteexaysaa laakiin adoo dabacad qalabsan hadaa ula timaadid arrintii wanaagsaneed inuu kaa qaadan bay u badan tahay inuu kaa qaadan ayay u badan tahay laakiin si wanaagsan hadaa ugu sheegtid walaalow sidaa maaha waa sidan adoo raali ah arrintan iska daaye waxa weeyaan waxa ku wanaagsan baa kuu sheegaya 1 2 iyo 3 intaas adoo raali ah samee khayr baa kugu jira jannana waa ku helaysaa waxa laga inuu ku badbaado laakiin si qabiixa hadaa ugu bandhigtid dacwada ilaahay subhanahu wa ta'ala ama diinta inuu ka qaanbalay oo kula dagaalamo ninkan waraysan maxaa waaye ama qoftan waraysan maxaa waaye in lagu dhaho ad-da'watu ilayhi marka in anfaafino ama afaafisid waxa baratay oo aad ku amal falisid arinta afraad oo ugu dambayso as-sabru 'ala al-adafih saddexdan arin ala timaaday rafaad badan baa u maraysaa awalan horta qalbiga waa inay go'aan ka timaado go'aanka waa inay ka timaado qalbigaaga marka go'aanka ka timaado qalbigaaga waxa kale waa hagaagayaan oo ilaahay tala saaratid subhanahu wa ta'ala sabarka waa arin muhiim ah su'aalahan la weydiiyo waxa kamid ahaa ayadaha ugu badan ee soo noqda sabarka bay ka hadlaan qofka hadduu sabar badan yahay waxa uu guusheeda buu helayaa إله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وحكيري فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا عليس كستوحا كدن بيه فضيت با كدن بيه النبي صلى الله عليه وسلم دعوه بوذي ددبو سو إسلامين هاي حدي عن حق السوشيال ميديا كهذا أما followers كان كهذا the person with the most followers أما قفك followers كأقوى له يا شيء كره social media waxa laga yaabaa inaad tiraadid ninku u laacibsan kubadda waxna magaciisa sheegi maayo waa taqaanaan ama ninka musaaracada ugu laacibsan inaad tiraado waa laga yaabaa magaciisa sheegi maayo waa taqaanaan waxa laga yaabaa haday ugu badato dhowr boqol oo milyan oo followers inay leeyihiin laakiin qofka followers ugu badan ama dadka raaco ugu badan leh asagoo isticmaalin Facebook asagoo isticmaalin Instagram asagoo isticmaalin WhatsApp wixii la mid ah waa nabiyullah Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabiga sallallahu alayhi wasallam muslimku waribu ahaa maanta waxa lagu joogaa 1.8 billion baa lagu joogaa ma Facebook baa la isticmaalo waa maya ma Instagram baa la isticmaalo waa maya taas maxay ku tusinaysaa Instagram iyo Facebook ina maalin kasta sawir soo dhigatid oo soo saartid oo isxaysiisid faa'iido ma laha
horta wax kasta sameynaysid faa'iidada ku keenayso ama nasib darada ku keenayso inaad fiirisaa danta kale waa inaad fiirisaa hadaa gabar tahay waa inaa amaanta lagu siiyay waa inaa ilaashataa qiimaha lagu siiyay waa inaa ilaashataa hadaa wiil tahay sidoo kale khaasatan gabadha markaan leeyahay waxa weeyaan dumarka waa ummadda waay dumarka haday halaabaan ummadda way halaabeen dumarka haday hagaagaanna ummadda way hagaageen marka Facebook iyo Instagram inaad iska soo xayisiisaan waa laga fiican yahay hadaa wax soo dhigaysid waa inaad wax faa'iido la tahay hadaa wax soo dhigaysid waa inaad message wadataa laakiin hadaa is xayisiinaysid waa laga fiican yahay qiimaha waa inaad ogaataa qiimuhu ku siiyay Allah subhanahu wa ta'ala in nabi sallallahu alayhi wasallam markuu markasta ku xusay waa inaad ogaataa uma baahnid Facebook iyo Instagram inaad iska xayisiisid already qiimaha waa la ogyahay wadadaas markaa martid qiimaha waa la ogyahay waxay ku xiran tahay qaabka wadadaas u martid qaabka wadadaas u martid bay ku xiran tahay hadaa asturanta ma adii kale qiimaha bay ku xiran tahay sida adiga isku qiimaysid laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu ku qiimeeyay nabi sallallahu alayhi wasallam wuu ku qiimeeyay culimada oo maalin kasta u taagan dacwadana way ku qiimeeyeen markay ka hadlayaan haday aayad ka hadlayaan ama haday xadiidka Allah subhanahu wa ta'ala haday ka hadlayaan xadiidka nabi sallallahu alayhi wasallam ama haday waana guud ka hadlayaan marka as-sabru ala al-adha fihi wax kasta sameynaysid waa inaad u sabartaa oo khayr ah waxaas dhan waxa daliil u ah oo Ilaahay ku soo koobay subhanahu wa ta'ala wa suratul asr bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku dhaartay waqtiga casrka ayuu ku dhaartay insaanka dhan khasaaro bay ku sugan yihiin yaa laga soo reebay illa alladhina aamanu waxa laga soo reebay qofka alla rumeeyay oo iimaanka qaatay wa amilu salihati amal wanaagsan yimid illa alladhina aamanu markii uu leeyahay ama aamanu ilaahay markuu qofka rumeeyahay waxa weeye wuxuu bartay cilmiga buu bartay ilaahay buu bartay rasuulkiisa buu bartay diinta islaamka buu bartay وعمل الصالحات وحو برتي بو عمل كذا بو سمي او عمل وناكسن بو ليمد وتواصوا بالحق اسكو دردارما وناغا اما حقا محاواي وادعوت اليه وتواصوا بالصبر واسكو دردارما صبرك وارنت افراد الصبر على الاذى فيه قال الشافعي رحمه الله تعالى امام الشافعي رحمه الله تعالى وحجري لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم إمام الشافعي رحمه الله تعالى وحجري سورة كلية إله دوسو دجين له ونغفل الله marka arinta hadaan soo koobo oo aan Soomaali ku soo koobo waxa weeyaan qofka haduu diintiisa barta oo amalkiisa wanaagsan la yimaado oo dadkana dacwad u fidiya una sabra waxa weeyaan purpose of life ama muhiimada uu nooshahay waa heshay waad guuleysatay oo waxa weeyaan ulul albaab ka tirsan tahay ahlu jannah ba insha Allah ka tirsan tahay inshallah ta'ala if I summarize what I said in English although I took long in the Somali language we were talking about the purpose of life when we are talking about the purpose of life the first thing that has to come in mind is Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is our creator. Allah is our beneficent. Allah is the most merciful. Allah is the greatest. Allah is the most powerful. We need to keep that in mind. Allah gave us what we know as ni'mah. Allah gave us ni'mah. Our eyes is ni'mah. Our hands are ni'mah. Our legs that we use for walking are ni'mah. Our heart is ni'mah, where we rule everything regarding our body. So how we use that ni'mah depends on us, depends on how we utilize our life, depends on how we utilize our purpose of life. Allah sent us prophets
Allah subhanahu wa ta'ala sent us Rasul, Al-Anbiya. The first Nabi, Allah said subhanahu wa ta'ala, is our father, Adam alayhi salam. And the last Nabi Allah subhanahu wa ta'ala has sent is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The phrase I've taken, إِنَّ اللَّهَ بَتَعَثَ مُحَمَّدًا لِيُخْرِجَ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ. Allah brought Nabiullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to remove the ibad Allah, or the slaves of Allah, from worshipping other slaves of Allah, to worship Allah subhanahu wa ta'ala. That's the main purpose Nabiullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was sent. Allah sent us the Quran along with Nabiullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Quran is the Kalamullah. It's not a creature. It was not created, but it's the words of Allah subhanahu wa ta'ala. We should keep that in mind. So it's the greatest thing Allah has given us, the Quran. Keeping all of this in mind, in this life, it's a life of transit. When you're traveling and going to a certain destination, you may go to another country for transit, depending on which airline you take. You are there for a few hours. So assume in this life, you only have a few hours, you only have a few years that goes by. Yesterday you were born. Today you are here, tomorrow you're going to die. Where are you going to go to? You're going back to Allah subhanahu wa ta'ala. You're going back to the day of judgment. So what must you do? We need to prepare for the day of judgment. We need to prepare for the day of judgment. How we should prepare for the day of judgment? First of all, we need to know what Allah wants from us. Allah subhanahu wa ta'ala, what He wants from us is simple and basic. It's not something you need to stress about. It's not something you need to overthink about. It only depends on your heart and brain. You need to just take the decision, believe in Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam, and things will work out. One of the tactics that was mentioned by Sheikh Muhammad rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Abdul Wahhab, was, he said, اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. We should learn 4 things that is propagated by Allah subhanahu wa ta'ala. That is a must. If we learn those 4 things, we will go straight to Jannah inshallah. One of the 4 is al-ilm. What is al-ilm? Al-ilm is not learning science. Al-ilm is not being a doctor. Al-ilm is not being an engineer and etc. Al-ilm is learning Allah subhanahu wa ta'ala, your creator. Al-learning is Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And learn their religion, which is Deenul Islam. And that Deen Islam is not for Allah subhanahu wa ta'ala alone. It's not for Nabiullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alone. It's for us. There's a reason why we were created. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. So we should learn Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet and the Deen al-Islam. The second of the 4 is al-amal bih. Since you learned these 3 aspects of ilm, you need to come with the amal. You can't just learn Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet and their deen and just sit and enjoy life by doing whatever you want using your shahwa. No, you need to come with your amal. And your amal must be a good amal. It shouldn't be what your heart desires. It should be what was ordered by Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The third of the 4 is ad-da'watu ilayh. What you have learned and came with the amal, which is the amal salih, you need to spread the da'wah. You need to share the message that you learned from our ulama or from Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. It doesn't matter even if you just say
to someone, ittaqillah, fear Allah once your life, it may change his life. There's a way to give da'wah. You can't just approach someone and you see this person doing the wrong things and say, you are so useless, why are you doing this? Why don't you do what Allah has ordered you? You are so useless, why are you doing this? You are already disencouraging the person. You need to encourage the person in order for the person to succeed. You need to give them the quality choice of words. You need to speak in a great manner. You need to speak in a quality manner. You need to give this person a chance. So ad-da'watu ilayh, it's important after your ilm and after your amal. And the last of the four is as-sabr. You need to be patient. When you are doing all of these three aspects, that's before the sabr, you need to be patient. If you are patient, things will work out. But if you drop to conclusions and say, things won't work out, why must I talk to these people? Then you haven't achieved what Allah has ordered you. You haven't achieved your purpose of life. The dalil or the evidence Allah has gave us is in the Quran, Surah Al-Asr. Allah says, especially in the last ayah, the person who believes in Allah subhanahu wa ta'ala and comes with the good deeds, which is the amal al-salihat, وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ, advise each other with the right, which is the haqq, the goodness of Allah subhanahu wa ta'ala and His religion, وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ, and advise each other with the patience. If you are patient, you will get your success. Allah says subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Every tough times, there is ease. Every tough times, there is ease. So since Allah gave us that oath, we should take advantage of it. It may take time from your perspective, but it's going to come inshallah. So once again, I will say, Barakallahu feekum. I thank all of y'all for participating in this program, whether it's listening to the purpose of life, whether it's listening to the advice of the Salaf, whether it's listening to the benefits of istighfar. It's all we need. Today, you have the summary of your life. Today, you have what is called Ihdina as-Sirat al-Mustaqim and its evidence. So I ask Allah subhanahu wa ta'ala, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.